NotPetya mid ka mid ah malwareska adduunka ka yaabiyay. Muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa waxa uu ahaa NotPetya, sidoo ku bilaabmay, yaa ka dambeeyay, khasaare inta leeg ayuu geystay, ugu dambayn sidee loo xalliyay, iyo su'aal ay dad badan isweydiiyaan marka ay maqlaan weerar cyber ah. Waxay noqon su'aashaasi. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta saaxiibayaal. 27 Juun 2017 waxay ahayd maalin caadi ah, wax dhib ahna lagu soo toosin, ilaa uu mar kaliya ah soo booday malware lagu magacaabay NotPetya. waxaanu bilaabay inuu faafo sidii kayn dab qabsaday oo kale, isagoo si xawli ah ugu faafay qaaradda Yurub, waxaana si xoog ah u saameeyay dalka Ukraine. malwarekan lagu magacaabay NotPetya waxa uu ka faa'iideystay vulnerability ama guddileel laga helay operating systemka ay soo saarto shirkadda Microsoft ee Windows. vulnerability-ga ama guddileelkaasina waxa uu ahaa EthernaBlue iyo EthernaRomance, oo labaduba ah laba exploit. iyaga laftooda ayaa la yaab leh. EthernaBlue waxaa samaysatay hay'adda difaaca NSA ee dalka Mareykanka si ay ugu jabsadaan kombiyuutarada targetkooda ah ee ku shaqaynaya Windows. kadibna EthernaBlue waa laga xaday oo gacantoodu ka baxay NSA. kadibna EthernaBlue waxaa laga sii sameeyay mid kale oo lagu magacaabay EthernaRomance. kadibna labadoodii ayaa weerarkaas NotPetya lagu fuliyay. haddaba sidee ayuu dhacay NotPetya? NotPetya waxaa markii hore loo ekeysiyey lana moodayay inuu yahay ransomware, oo marka uu qofka kombiyuutarkiisa soo galo waxa uu weydiinayay madax furasho, kadibna haddii uu bixiyo waa la sii daynayay. balse ujeedka NotPetya waxa uu ka weynaa intaasi. waxaanu ahaa mid u socda inuu burburiyo meel kasta uu galo. wuxuu sameynayay inuu si aad u adag u encrypt gareeyo faylasha ku jira kombiyuutarka ama systemka. haddii uu helo awoodda adminka, waxa uu sameynayay inuu encrypt gareeyo waxa loo yaqaano master boot record-ka, oo ah meesha ugu horeysa ee systemku ka soo kaco. halkaas hadduu gaadho, macnaheedu waa inaadan gebi ahaanba isticmaali karin kombiyuutarkaaga. haddii aadan garanayn encryptionku wuxuu yahay, si fudud waa in xogtaadii laga dhigo midaadan adigu isticmaali karayn, akhrin karin, furina karinna. marka waa lagaala wareegay. haddaba NotPetya keliya tamuu saamayn oo kuwa ekaan kombiyuutarada shakhsiga ah, balse waxa uu gudbay oo ku faafay hay'adihii waaweynaa, bangiyadii, xarumihii dowladda, shirkadihii korontada ayuu dhammaantoodba curyaamiyey. waxaa isweydiin mudan cidda ka dambeysay weerarkan halista ah. ilaa hadda wax cad cidna laguma hayo, maadaama weerarada noocan oo kale ah ee cyberka ah loo fuliyo si aad u adag oo ay adag tahay in laga helo tixraac. balse dalka Mareykanku waxau si cad ugu eedeeyay weerarkan dowladda Ruushka. qiyaas ahaan weerarkan kamay dambeyn koox yari, waxaanu ahaa nooca loo yaqaano state sponsored attack ama weerar ay dowladdu fulisay, Ruush ha ahaato ama Mareykan ha ahaato. khasaare inta leeg ayuu haddaba geystay NotPetya. khasaaraha uu malwarekani geystay waxa uu gaadhayaa billions dollars, waxauna ahaa mid mar labaad adduunka ku baraarujiyey khatarta cyberka. markii koowaad waxaa dhacay malwarekii WannaCry oo dhacay May 2017. wax yar kadib oo ahayd June 2017 waxaa dhacday NotPetya. labadubana waxay geysteen khasaare aad iyo aad u weyn. ugu dambayn, xalinta malwarekan NotPetya muu ahayn mid si fudud lagu xalliyey, waxaanu ahaa dadaal ay ka qayb qaateen khabiiro badan oo cyber security ah iyo dowladuhuba. waxaa si degdeg ah loo sameeyey patch iyo update lagu joojinayay guddileelka EthernaBlue, waxaana hay'adihii iyo dadkii uu saameeyeyba ku khasbay inay dib u eegis iyo wax ka beddel ku sameeyaan nidaamyadooda cyber security-ga. ugu dambayn, waxaan ku soo gabagabaynaynaa su'aasha ay dad badan isweydiiyaan, taasi oo ah marka uu dhaco weerar cyber ah, sidee ay waxaas oo dalal ah ama kombiyuutaris ah ugu faafaa. tusaale ahaan, WannaCry waxa uu muddo yar ku gaadhay 150 waddan, NotPetyana wuxuu ku gaadhay in ka badan 60 waddan. marka sidee ay si dhaqso leh ugu faafaan weeye su'aashu. haddaba marka malwares sidaan u halis badani ula awood badan ay faafayaan, waxay isticmaalaan tallaabooyin ay ugu muhiimsan yihiin botnet, oo ah in marka hal kombiyuutar uu malwareku soo galo, in kombiyuutarkaas ka qayb qaato faafitaanka malwareka. ama waa sidii zombiga oo kale, haddii uu zombigu qaniino qof caadi ah, qofkaasina wuxuu noqonayaa zombi. sidoo kale waxyaabaha isticmaalaan waxaa ka mid ah protocolka loo yaqaano RDP ama Remote Desktop Protocol, oo ah inay hackersku baadhaan sistemyada leh passwords jilicsan oo ay markiiba jabsan karaan. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ka qayb qaata faafitaanka malwareska
in shirkado badani ay leeyihiin networks waaweyn oo ku kala yaala dalal badan kadibna waxaa suurtagal ah in haddii hal kombiyuutar oo networkaas ka mid ah la soo galo in loo sii gudbi karo dhammaan inta kale ee kusii xidhan ama kusoo xidhma kombiyuutarkaas marka haddii tusaale ahaan la galo serverkaas waxaa alaale wixii kusii xidhan waa la saamayn karaa oo way gaari karaan malwareisku muuqaalka hoostiisa ama descriptionka ka eeg muuqaalo ku saabsan arrimahaasi xasuusnow inaad ka taxadirto markasta kana war hayso ammaanka kombiyuutarkaaga iyo qalabada tiknoolajiyadeed muuqaalkii maanta intaas ayuu ku egyahay fadlan ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto siina sheegi karayso si uu gaaro saxaabadan mahadsanid